soo dhawaada saaxiibadeyda qaaliga ah subax wanaagsan kalaxaada salaada subaxnimo kadib faa'iido badan ku jirto khayr badan ku jiro tusaale ahaan eeyaha iyo eriga yaa dhalmo badan eeyaha dhalmo badan eriga dhalmo yar saasi ay tahay haddana eeyaha iyo eriga badan erig markasta marta ay ku imaado waa la qala waa la gadaa saasi ay tahay haddana oo sii badanaya erigan markasta oo yariya eeyahana markasta way dhalayaan way badan yihiin lama gado lama qalo saas ay tahay haddana sii yaraanayaan aan yiraahdo marka waxa barakada ka qaaday eeyaha habeenkii dhan ay dhafaraan erigan habeenkii fiid hore seexdaa subax hore soo kalaha wax barakada ka qaaday marka kala xaadiradu way eeyaha habeenkii dhan 8 saac 7 saac 9 saac marka soo kacay way qaylinayaan salaada subax markii la aadaman way seexanayaan erigina markaas uu soo kaca intii soo raasana barakada sidaas way marka salaada subaxnimo kadib waa sidaas adii hadda wiliga kala xijirtay maalmii aad kala xijirtay iyo maalmaha aad maragtay aad ku laabatay hurdada aajis ahaan iyo furfurnaan ahaan caafimaad ahaan wax kasta waxaa fiican maalinta aad kala xidid ee faa'iido badan ku jirta caafimaad badan ku jira marka kala xaad aan ku dadaalno kala xaad faa'iido badan ayaa ku jirto had kaliya socda goobteeda shaqada aan socda safarkaada waxaa bilaaban karaa hal maalin kaliya safarka lagu sheegayo hal talaabo ka bilaawda hal talaabo aad qaaday ayuu safarka ka bilaawda dad kasta oo guuleysteen aad aragtid hal maalin bis ay bilaaween way joogteeyeen way guuleysteen ninka adduunka ugu maal qabeen badan oo maalkiisa ugu badan yahay hal maalin oo ku fikiray oo horumariyay macnaha oo kula laabtay oo joogteeyay oo ku celceliyay sidaas oo ku guuleystay adigana hal maalin intaad bilowdid waad guuleysan kartaa oo ku celcelin kartaa waad guuleysan kartaa waxbarashada aad dib ku qabtid waa joogteena waa ka gudbaysaa macnaha waa baase imtixaan ku dhacay laguma haro ashraa ugu adkaaday iskuul looma gambiyo dugsi looma gambiyo jaamacad looma gambiyo waxaad isku adkaysid waad ku guuleysanaysaa insha Allah walwalka aad mustaqbalka aad ka qabtid iska yaray iska ilow waxyaabaha aad mustaqbalka aad haminaysid in aadan gaari doonin aba laga yaabaa daqiiqad soo socotaba inaad dhiman doontid ma ogid haddana waxaan la gaarin oo mustaqbalka aad ka fikiraysa oo u waalanaysa xaasiska ilaaw daqiiqada iyo saacada aad noosha aad joogtid maalinkaas aad joogtid ala noolaada lagu dadaalaa adduunyadaada iyo aakhiradaada maalinkaas la horumarsadaa waxyaabaha ay dadku ka sheegayaan iska ilaaw oo iska indhatir iska dhigatir wiliga marka meel shaqo aad joogtid ama waxbarasho aad joogtid dadka ay wax ka sheegayaan waxyaabaha ay dadka ka sheegayaan waxyaabaha xun lama uriyo hort lama dhageysto afkana waa balaga xirtaab indhaha waa laga daboosha lama arkab goorma xumaha iyo waxyaabaha ay dadka ka sheegayaan kugu liidayaan gormaad is arkaysan ma jirto weeye macnaha markay dadku wax ka sheegayaan dadkii ay wax ka sheegeen ay ku xumeeyeen ay ka guuleysan karaan waa markaad adigu dhageysatid oo waxyaabaha ay ku sheegayaan aad qaadatid hadii ba adiga iska dhagatirtid iska indhatirtid amba urinin goormay wixii ay ka sheegeen ay kaaga guuleysanayaan maba ka guuleysan karaan hadii adiga aadan isku dhiibin simadaasi aad ugu gudubtid oo u baastid noloshaada adduunyo iyo mid aakhirana aad u guuleysatid iska indhatir
iska dhagatir haba hala soconin waxa lagu sheegayo iska tir iska ilaaw waa adduunyo waa sidaas marka adduunyada iyadaaba laba maalin ah maalin aad dhalanaysid iyo maalin aad dhimanaysid waa way iska kooban tahay haddaa waxbarasho ku jirtid haddii aad shaqaynaysid waa isku kaymid labadaas maalin inaad guulaysatid aday ku jirtaa hankaaga horumari hankaada saad ku horumari leed adaa garanaysid shaqayso waxbaro waad guulaysanaysaa si aad adduunyadaada aakhiradaada u horumarisidna number 2 horta salaada ku dadaal markaad salaada ku dadaashid waad liibaanaysaa insha allah waxbarashada ku dadaal quraan akhriskana ku dadaal quraanka number 1 ha ku ahaado number 1 maalin kasta juskaada ku tuur haddii jusku kugu adag yahay 5 bilood ku tuur maalintii haddaa 5 bilood aad akhrisid 5 baal baad akhrisid waa ka bixi kartaa 5 baal akhrina waa ka bixi juskan wax weynba ma aha 10 lay waa ku celinay 5 la akhrina masjidka 5 ku akhrina waa ka tagay hada baawarka iska saarana telefonkaada la soo bixi 5 baal ku tuuray hal jus waaba ka baxday 2 jus 3 jus 4 jus 5 jus maalin kastaad akhri kartaa laakiin naftaan halka ku tarbiyay horta marka hore hal isku rugn halkaas meel saar marka hal meel saartid 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 ayaga iska imaanay bacda jeclaanay macnaha way ku babaxay meel kasta aad firiisatid waxa ku qabanaysa horta quraanka akhri noloshaadan farxad iyo sacaado qurux badan ku noolaanaysa macnaha isliidin dadkan quruxda badan oo la labasano oo maaragtay hantada heesta aad aragtid way dadaaleen way soomeen way salaadeen way sadaqaysteen quraan akhriskan way badiyeen taajiriinta u fiirso taajiriinta muslimiinta u fiirso kuwa ugu lacagta badan aad arkaysid way labasiin oo qurux badan yihiin markasta aad aragtidna quraanka ay akhrinayaan ade maxaa ka reebay marka adoo faqiir ah inaad quraan akhri weyso maalin kasta waa nasiib daro